maxaa cabdi waare khudbadiisu aniga ma aqaano qof mas-uul ahoo calashaan heerkaas levelkaas soo gaaray oo maaragtay saameyntaas leh inuu inta meediya tago oo sidaas inuu ka yidhahdo aniga sax ilama ah aniga ma difaacay wasiirka mana aqaano hadda waxa lagu sheegay inuu yahay inuusan ahayn mana beri yeelaayo waa yahayna meli laakiin eedda meesha ay ku habboon tahay aan raba inaan tilmaamo maxamed cabdi waare madaxweynaha cidu kama xigto ergeygiisiiwa waa nin siyaasi oo caan ahoo xil madaxweyne soo noqda simbali iyo siduu rabbi ku heli kara inuu inta la fariisto oo yidhaa madaxweyne ciladan jirta halkaana wax ka dhaqaaqi ay yihiin intaas xogta uu sheegay iyo waxa uu leeyahay waa qarinaaba inuu u sheegay laakiin inuu media tago waxaad aragta uu ka sheego sax maaha walaal sax maaha walaal waxaa jirtay madaxweynihii hore ee Hirshabelle waare maruu hadlay wareysi bixiyay wuxuu dhowr mar ka hadlay arrimaha dagaalka wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya eedo weyn u jeediyay si la mid ah reeraha deegaanada hadda aan sheegno dagaalka ka socda ayuu ku eedeeyay inaysan dagaalka inay xaraka ka tahay aysan ka ahayn wax dhaba maxaa kaaga baxay arrintaas waxay rabaa horta inaan ku laabto xagga dagaalka intaan u soo laaban wasiirka hooyo dambeeyo horta Ismaaciil oo saad la socoto nimankan shabaabka la yiraahdo markii dagaalkooda uu hadda bilaabanayay waxaa lagu la dagaalamay oo dagaalku ka soo bilowday laamiga dheer alshan gobolada dhexe isku xira iyo xamar ilaa waqooyi galbeed maalmahaas alshan dhulkaas waxa u joogay 5 nin 10 20 ka yar calan meel saagan oo 2 nin la joogto xabad dhulkaas u joogeen danahooda uga fushay jireen markay ogaadeen gulufka ku soo foole iyo xasan sheekh madaxweynaha calashaan khudbadiisa ay ogaadeen ilaa nimanka sirdoonna way leeyihiin dadkana way ku dhex jiraan oo hadda calashaan war ma seeganeen waxay go'aansadeen inay meel ay difaaci karaan isugu tagaan oo baneeyaan dhulkan ay xabadkii labada shashanta u joogaan ay ka tagaan go'aansadeen waxaan hadda cali jeeyta oo huuf ka daba lahay waxay ahaayeen niman geediyo shabaab geediyo u socda calashaan maxaa la dhihi jiray meesha isku difaaci kareen isku tagi lahayn u socdi markay isu tagaan hadda meeshay joogaan way iilkood meesha ka qodan yahay waaye qof nooluna ma ogol iil in tala dhigo lagu duugo marka sababta ay u dagaalka hadda ugu culus u wadaan waa meesha hadda ay joogan oo fursad kale u banaan aysan jirin inay ku dagaalmaan ku leedaan ama maaragtay ay danta ilaahay ku gaaraan maahan taas horta waa intaasaan rabeen horta aan ku daro xagga dagaalka hal qodob oo kale rabaan inaan ku sii daro dagaalka saddexda aag oo goboladan dhexe hadda calashaan galmudug iyo Hirshabelle ama dhinaca Shabeellada dhexe iyo Hiiraan aan iraahdo dagaalka ugu culus nimankay ku soo qaadeen waa nimankan abgaal hal dagaal oo kamid ah nimankan abgaal dagaal ku soo qaadeen inta kale oo dhan kuma aysan qaadin waxaad la socotaa ruurigooda wixii ka dhacay waxaad la socotaa wixii ka dhacay meesha la yiraahdo meesha daaru nimca waxaad la socotaa wixii ka dhacay maxaa la dhihi jiray qalcad dhulkan abgaal dagaalka ay ku sameeyeen meel lamid ah ku sameeyeen ma jirto sababtay ugu sameeyeenna waxay ahayd maadaama qabiilka kaliya ama meesha culayska ugu badan ay ka dareemayaan halkaan ay ahayd madaxweynaha ka soo jeedo waa dad tiro iyo tayaba leh hubaysan oo ciidan iyo cudba leh marka cid walbaan cid la dirayso waxay isku dayaysaa inay halbowlaha jirto marka horta calashan eedda dhinacaan inta badan loo soo jeediyana waxaan rabaa iyada naftirkeeda inaan kelmadaas ka iraado halka qodob mar markuu wasiirkan u soo laabto ay ka qabasho maxaa cabdi waare khudbadiisu waa dhegeysta maxaa cabdi waare khudbadiisu aniga ma aqaano qof mas-uul ahoo calashaan heerkaas levelkaas soo gaaray oo maaragtay saameyntaas leh inuu inta meediya tago oo sidaas inuu ka yidhahdo aniga sax ilama ah wasiirka uu eedeeyey hadduu eedaas leeyahay madaxweynaha inuu u tago u sheegay ahayd prime minister inuu u tago u sheegay ahayd bale walow aan ogahay inay asaga uga aqoon badan yihiin oo iyagu ka yaqaaniin wasiirka hadduu cilada uu sheegay leeyahana maanta uusan wasiir ahaadeen ilaa ninkan wuxuu ku eedeeyay ma aan caadi ahayn dagaalka inuu dhabar jabinayo ama maaragtay calashan wax la fasiri karo inuuba asagu nimankaas la jiro ayuu ku eedeeyay marka inuu media la yimaado oo saas ugu sharaxo oo saas ka yiraahdo oo saas ka yiraahdo aniga sax uma arko de waxay ahayd inuu maaragtay madaxda fadhi ugu sheego yiraahdo ciladaana jirtay anigu xogtaana soo helay hala baaro laakiin walaal sax ilama ah waxay cadda ka sheegay ninka la yiraahdo Maxamed Cabdi Waare laakiin waxaa jirtay warar sheegayay in taliyihii ciidamada xoogga dalkii wasiirka aysan xiriirkooda usan wanaagsaneyn oo warar banaanka yaallo ahaa taalaftirkeedu u iftiimiyay soo lama arki karo waxyaabo annaga ayna arkaynin inuu arkay Waare Ismaaciil aad u mahadsan aniga ma difaacay wasiirka
mana aqaano hadda waxa lagu sheegay inuu yahay inuusan ahayn mana beri yeelaayo waa yahayna mali laakiin eedda meesha ay ku habboon tahay aan raba inaan tilmaamo maxamed cabdi waare madaxweynaha idu kama xigto ergeygiisu waa nin siyaasi oo caan ah xil madaxweyne soo noqday simbali iyo sidoo rabbi ku heli kare inuu inta la fariisto oo ira madaxweyne ciladan jirta halkaana wax ka dhaqaaqi la yihiin intaas xogta uu sheegay iyo waxa uu leeyahay waa qarinaaba inuu u sheegay laakiin inuu timeediya tago waxaad aragtay uu ka sheego sax ma walaal sax ma walaal xalada arin laga qurux badnaa ergeyga madaxweynaha uu sheegay laakiin soo laga ma yaabo in haddana ay xiriir xumeyn ay soo kala dhex gashay madaxweynaha uu la xiriirkiisa u fududaan waayo soo suuragal ma haddii madaxweynaha xiriirkiisa waa nin iska eedayna marka meel iska fadhiyo ama wasiir oo iska dul fuula calashan waxa way hadda arrintan haddii xataa ay jirto wuxuu bixiyey war inuu banaanka u baxay aysan ahayn bulshada inay ka dhagaacdo aysan ahayn asaga wasiiraha iyo maaragtay calashan dawladda dhexdeeda in maaragtay meediyaha la dhexdhiga hadalsan ahayn uu bixiyey marka waxay ahayd si kasta ha ahaatee madaxweyne fursad kasta u raadsadee inuu raadsado oo u sheego oo kala hadlo oo maaragtay hay'adaha kale ku habboonta kala hadlo aniga u aaminsanahay in xibno sare ama maaragtay dad wax dhaxgal daacina siyaasiyiin way dhici kartaa way jiri karaan laakiin anoon kana beri yeelin kana aan weeraraynin aan waxaan tilmaamaya meesha ku habbooneed in hadalka la dhigo maxaa keeni kara marka hadalka intaas leeg oo eedaynta intaas leeg in uu jeediyo marka su'aashaas in isaga la weydiiyaa ku fiicnaan lahayd laakiin aniga waxay ila tahay aragti ahaan calashaan waxay ila tahay inaysan dee kelmadan sax ahayn inuu mas-uul ka soo baxday ila tahay intaa ma dhaafin rabo oo haddii dhalin u arko sooma sheegi kara mas-uulka meediyaha warkiisa gooni waa warka kaasoo kalena ma aha war meediya maaha war meediya maaha walaalkaas xilligan in la sheego warkaas xilligan in la sheegana maaha in mas-uuliyad nin wasiir gaashaandhig haaye iyo madaxweynihii calashaan statetka soo maray oo maaragtay maxaa la dhihi jiray siyaasiga weyn oo la yaqaano ahay inay war noocaasa media isu marsiyaan sina sax kuma awla fariinta ugu dambeyso aad diri lahayd oo dagaalka ku saabsan waa maxay ismaaciil aad u mahadsan tahay fariinta aan diray horta waxa weeye midna waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed kula hadlo niman siyaasiyiin oo hadda ka hor rag badan waa ka hadleen iga horeeyay oo iyagoo maqaayada kofa uga shuban yahay wax haweerad culayso haya ay si jireen hoteelada degan iyo guriyo way magaalada ka degan ama dibadda degan inay isaga daacsan dagaalka ama ay maarta calashan markii maalashan ay madaxweynaha oo habeenay maalin dhaxanta taagan oo tuuto ugu jiro gurigiisa iyo deegaankiisa ka tago furunta jiifo riski kasta ku jira ay dhaleeceeyaan shaqo ka dhigto waxaan dhihi lahaa walaalayaal dad wax dad bedeli kartaan qabaa'iladiina iyo dadka idinku xiran inta kicisiin dagaalka geliya haddadna waxba tari karina dadka hawsha ku jira fidna iyo calashan ha ugu noqonina maarta calashan fawdaha ku ahaanine cagta ka dhigan dhihi lahaa kelmadda kale aan rabo inaan ku daraa waxay tahay walaa Ismaaciil guul darrada guusha horta cid kasta sheegata anaa sidaan yeelay iyo horaan ogaay iyo qabiilkana saana iyo anaga sirta soo helnay iyo waa artay waxa Soomaaliyeed ka dhacay hal guul darro markay dhacdo ama sidii rabo waxaan ay dhacaana reer hebel dhabar jabiyo iyo ciidamada waa la gatay iyo gaal hebel ma artay wax sumaysan siiyay ma artay waa hadal aydan ma artay guul darrada iska leedahay marka waxaan baraha bulshada yaacay dadkaan maartay wax magaradka ah oo qaarkood rag dad saameyn loo waxa jira kumanaan boqolaal kun oo qofood ay ku xirtay beejkooda haddana si negative ah u shaqaynayo oo moodo inaysan dalka ba lahayn marka waxaan dhihi lahaa warniman yahow dalkaan aad leedihiin dalna dadka lahaa dhisee dalkiina inaad dhisataan oo maartay macna ku leedihiin dalkiina dhista sidoo hadda yahay uga bixi maayo haddana garab oo soo idinka helino waxa aad xaq idin ku leeyahay soo idinka heliso hadda ya ka fiicnaan maayo dalkiina u soo jeestaan dhihi lahaa bangiga salaam Somali Bank wuxuu adeegga mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududaynayaa inaad si online ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeegga e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo